maqan ma sida ku dhiri doontaa isweydiin. maxkamadda adduunku markii ay jadwalkeeda eegtay daristay doodii labada dhinac dhageysatay soo jeedimihii waxa ay go'aamisay maanta soo saartay in dacwadda dhageysiga dacwadda maxkamadda adduunka oo ay dhageysanayso ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ay u fadhiisato ay maqasho 8 ilaa 12 bisha June sanadka 2020 muddo kordhintaasi waa kama dambays maxkamaduna qaraar waxa ay ku soo saartay in aan mar dambe la kordhinaynin hal maalin lagu darahayn dhinacyaduna ay u soo diyaar garoobaan in doodooda afeed ay keenaan 8 soo jeediyaan 8 ilaa 12 bisha June sanadka 2020 waxa kale maxkamaddu cadeysay in soo gudbinihii dokumentiyada iyo qoraalada iyo ku saabsanaa dacwadda badda ay dhamaadeen horena loo soo gudbiyay haddana waxa haray ay tahay in dooda afeed la geeyo oo dhinac walibana soo diyaar garoobo 8 June ilaa 12 June sanadka 2020 anagoo haddaan nahay dawladda federaalka Soomaaliya waxa uu ahaa mowqifkayga 4 November inaan laga kordhinin hase yeeshee waa u hoggaansameynaa go'aanka maxkamadda cadaaladda adduunka diyaar baanuna u nahay in xaqa iyo xuquuqda iyo dhamaanshaha dhuleed iyo badeed ee dawladda Soomaaliya aan ku medelno dawladda Soomaaliyana hal inch ay ka tanaasulahaynin dacwadeedana aan gudbinayno. Soomaaliya go'aankay wadatay ee ahaa bisha 4 November in la dhageysto lagama ogolaan. Kenya oo iyadana maaragtay rabtay in September sanadka soo socdo 2020 in keeska dib loo dhigno lagama yeelin marka Kenyana uma eexanin waxay maxkamadda iyadii ayaa isu eexatay oo keeska ayay u eexatay waxayna rabtaa in labada dawladood si murun la'aan ah meeshii u yimaadaan ee keeskii waqtiga ay u dhigtay bisha 8 maaragtay halka ay wada yimaadaan iyagoo